Gudomiyaha Xafiiska Imtixaanadka Qaranka Somaliland ay weheliyaan afhayeenka wasaaradda waxbarashada, mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale ayaa kulan wacyigalin iyo baraarujin la qaatay ardayda sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ee Somaliland gaar ahaan ardayda gobolka Togdheer. Kulamadan oo lagu qabtay jaamacadda Burco iyo jaamacadda Golis ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadahaasi, Gudomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Caynaashe, maamulayaasha dugsiyada Sheikh Ibrahim, Ahmed, Jamal Abdinaasir, Mustaqbal iyo xubno kamid ah ardayda u diyaar garoowaysa imtixaanaadka shahaadiga. Waxaana mas'uuliyiintan wafdida uga mahadnaqeen imaanshiyaha Burco iyo la kulanka ardayda. runtii waa kulan aan jecelnahay inuu socon doono. aan jecelnahay ardayda iskuulada inta badan maanta soo gaadha ee qofoorka inaanu kala shaqeyno sidii sanadkan u guuleysan lahayd. halkaa fadhiya oo qaalinkii ka dhigan ama dhalinyaradii maanta qaranka u soo kacaysay hogaamiyayaashii buritaasi waxaa la keeni doonaa alaab lagula dagaalamaya qishka. waa soo dhaweynayna reer buraxadaan waxaan hubaa in ardaydu halkan ay ka muuqataan niyad wanaagga iyo qiimaha ay maaragtay sida u diyaarsan yihiin xafiiska imtixaanaadka ama aabaha xafiiska imtixaanaadka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu leeyahay khibrad ku dhawaad 20 sano ah oo xafiiska Somaliland وكمان في دخل قارئ يلاقي تقول امتحان هو حسن السنة وحسن السنة أنا هو كم غير عن هاي وفرق في قوة تطور هاي وحوالي ملي هو هنروح يبوظ ما أنت أنا ملي كذا وحوالي هاي ملي سوري كذا أدوي ومهمة أنت جمهورية السودان الموجود لا يحوالي تبي هذا فوق أنت أدو حاول سميني هذا وحافظ النقطة هذا دلال النقطة هذا النقطة إلى إنه أودي الجرون وين سمين حفيز كامتحان هذا داود وادي الجرون اسمه امتحان وين أودي عليه هل قدر بايرو عليه ونزول يعني أنا كيف تيجيو هل قدر روحوي إن أرضيه ويسكوك الصونا هذا امتحان شهادة إقامة ولا بقامها وعلى يكون إقامة يما وقيمين وإيفالويشن وحلا قيمين يا دلالك على قيمين. afhayeenka wasaaradda waxbarashada Somaliland Cabdilaahi Ibrahim Xaaji Xasan ayaa ka warbixiyay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ujeedada socdaalka wafdidan u daaran yahay. maanta wasaaradda waxbarashada waxay ku jirtaa marxalad wanaagsan maadaama afhayeenka wasaaradda ahay waxaan idinku toosinayaa hambalyo iyo salaan aan idinka sido wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Xisbaan Jaamac Aadan wasiirka xigeenkii Maxamed Daahir agaasimaha guud Ahmed Abubakar Maxamed iyo agaasimaha guud waxaan ku dhigruun ilaahay damkii imtixaan si nabadgelyo loogu dhici doono. Gudomiyaha Xafiiska Imtixaanadka Qaranka Somaliland Daud Ahmed Farah oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa ku dhawaaqay goorta uu bilaamayo imtixaanaadka qaranku waxaana ardayda kula dardarmay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha aan laga ogolayn intuu imtixaanku socdo. imtixaanku wuxuu dhacayaa haddii ilaahay wararka suuqa lagu sii daayay imtixaanka dib baa loo dhigay waxaan kaasa la suuriyay imtixaanku wuxuu dhacayaa haddii ilaahay ilmo 15 Juun waa sabti wuxuu u badnaanayaa waxaad idinku dhigateen 2 iyo 3 iyo 4 soo maaha intaa wuxuu ugu badnaanayaa boqolkiiba 5 iyo 8 waa foog imtixaanka waxa kaloo muhiima ardaygu imtixaanka markuu gelayo waa inuu uniform dhaqaaqaa dalkii iskuulka waa inuu sitaa ugu yaraan 2 qalin waa inuu ugu yaraan 2 qalin sitaa taga saaweyn waxa weeye fariisanayaa qofku halkii loogu talagalay oo maskaxdooda imtixaanayna marka ma rabno wax tiknoolajiyada inaan kaayad lagu cadaaliyo waxa rabaa marka tadibka lagu hayaa marka waa bahalka cadaaladii marka waa loo reeyay marka waxa weeye haddii hadaba cadaalad loo doonayno waxa rabaa inuu ka bilowno naftoodo marka imtixaanka soo gelana gobolka ay xaafadda ka nimaado. Jaamac Salebaan Umar, Bulsho TV, Magaladda Burco.